waa dhalinyaro waxay ka soo baxeen jaamacadaha dalka qaarkood iyo kuwa dibadda ah waxay soo barteen kulliyado kala duwan iyagoo ka weecday dariiqa inta badan ay maraan dhallinyarada Soomaaliyeed oo ah inay fariistaan xafiisyo jaamacadda kadib waxay doorteen shaqo ay ugu adeegayaan dalkooda. waxaan soo bartay Bachelor of Human Resource and Management aqoonteedana booliiskan ku soo biiriyay dhinac kastana waa ugu shaqayn karaa hadday noqoto tii physically shaqadii looga baahnaa xoog waa qaban karaa tii xafiiska looga baahnaa waa qaban karaa mid kastana waa qaban karaa aqligaagan haddii aad aqoontaada dhisan tahay aqligaagan wuxuu noqon karaa mid buuxa si kastana laguma dagi karo adoo wadaniyadaada ku shaqaysanaya aqoontaadana ku shaqayn kartaa laakiin haddii aqoontaada yar tahay wadaninimadaadana way yaraanaysaa. waxaan jeclaystay anigoo arday jaamacad dhameeyay ah in aan ku biiro ciidanka booliska Soomaaliyeed sababtoo ah waxaan jeclahay dhibaatooyinka aniga soo arkay inaysan arkin jiilka aniga iga dambeeya ee ku noolaadaan dawladnimo qurux badan. dhalinyaradan waxay saf ugu jiraan in loo diiwaan geliyo oo ay ku biiraan ciidamada qalabka sida waxayna tani tayo gelisay shaqada ciidamada sida uu qabo gaashaanle sare Daahir Cabdulla Raage oo ka tirsan ciidanka asluubta Soomaaliyeed. ciidanka asluubta wax badan bay kartay dadkaas hadda waxay jiraan tababar baan u bixinay si ay loo soo baro qaabka hogaamineed ay wax ku hogaamin lahaayeen bacdama ay dhalinyaro yar ay dalka u soo baxdeen ciidanka loo qaatay si uu noqdo mustaqbalka iyo hogaaminta ciidanka. teknolojiyadda casriga ayaa xilligan la joogo muhiim u ah qayb kasta oo ka mid ah adeegyada oo dhan in la helo dhalinyaro tacliin sare leh oo fahmi kara hawshaas ayaa macno gaar ah u samaynaysa qaybaha kala duwan ee ciidamada. amniga maanta waxaad moodaa waayihii hore sida xogaha loo raadin jiray si ka duwanaa loo raadiyaa maanta waxaa loo baahan yahay qofkan markii uu amniga ka shaqeynayo inuu si weyn uga warqabo teknolojiyadda iyo heerka joogta sababtoo dambiilayaasha caalamiga ah ee hadda dambiyada geystaa waxay si fudud ula socdaan teknolojiyadda marka adoo teknolojiya ahaan aan diyaarsanayn ama wax xoga aaba ka haysan way kugu adkaan doontaa inaad dambi baarto inaad daba kacdo tuugo inaad soo qabato inaad la xisaabtanto. waxaa jira dhalinyaro soo daayay hawlo kale oo ay hayeen oo ka doortay inay ku biiraan ciidamada. waa loo baahan yahay aqoon-yahanada inay ku soo biiraan ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo dhammaan ciidamada qalabka sida dhalinteena badanaa way tahriibtaa wadanku way ka carartaa ma fahansana micnaha ciidannimada ee leedahay qaasadan ciidanka booliska Soomaaliyeed. waxaa jeclaan lahaa ama rajaynayaa in dhalinta anagana la midka ah oo aqoon-yahanada ah ee dhameeyay dugsiga sare iyo jaamiciinta ay ku soo biiraan ciidanka booliska Soomaaliyeed. markii aan jaamacadda soo dhameystay qof walba han baa ku jiray hanka igu jiro wuxuu ahaa inaan mar un qaranka Soomaaliyeed u shaqeeyo waxaan haystay fursado shaqo qurux badan waxaan ahaa mihnada hadda ku shaqeynaysa saxaafadan ku shaqeyn jiray laakiin markaan arkay fursad looga baahan yahay ciidanka booliska inay ku soo biiraan dad aqoon leh waxaan garaystay in loo baahan yahay amniga qaranka inay ka shaqeeyaan dad aqoon leh. markii aan waxbarashada soo dhameystay waxaan go'aansaday inaan ka mid noqdo dadka Soomaaliyeed ee horumarinta ammaanka iyo waxqabadka bulshada Soomaaliyeed u dhimanaya inaan ka mid noqdo oo u dhintay bulshada Soomaaliyeed anigoo maartay u adeegay dadkayga iyo dalkayga taasoo aan aan ogahay inaan cid iga leh maanta aysan jirin hadaan ka seexdana booskayga cid soo buuxin aysan jirin. in dadka aqoonta leh ay ka dhex muuqdaan qaybaha kala duwan ee ciidamada dalka waxay sahlaysaa in si fudud looga soo kabsado waqtigii dheeraa ee Soomaaliya kaga lumay burburka sida uu sheegayo Korneyl Cabdi Maxamed oo ka mid ah saraakiishii hore ee militariga. dawladda federaalka waa uga mahad celinayaa inay dhalinyarada siiso mudnaanta dhalinyarada mudnaanta ha la siiyo dadka waaweyn laftigiisa lagama tagi karo arkiibya weeye dadka waaweyn ayaga maaragtay meesha hagidda yaqaan waa wadada waa lagu ridi karaa la taladay wax ku leeyihiin dhalinyaradu maanta aad bay wax u barteen laakiin ha barteena waxyaalo badan baa ka maqan ayaga laftigoodii waxaa ka maqan wadanka wadaniyad badan baa waxaa la rabaa wadaniyad in la helo gaar ahaan kuwa ciidamada iyo hadda galay waxay u baahan yihiin in wadaniyada la baro wax walba waxaa ka horeeya xabadda rid waxaa ka fiican qofku waxa uu dhibanaya iyo waxa uu maaragtay ku hawlgalaya inuu yaqaan. ka dhex muuqashada ciidamada dadka aqoon-yahanada ee ka soo baxay jaamacaduhu waa calaamad muujinaysa kobaca iyo horumarka uu sameynayo ciidanka qaybahooda kala duwan. Maxamuud Cabdi Diirshe, warbaahinta qaranka, Muqdisho.